السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا kusoo dhawaada channelka Cartoon af Soomaali. Halkani waxaan idinkaga soo gudbin doonaa cartoon taxane ah. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe, like, share. Taasi waxay inoo tahay dhiirigelin. Mahadsanid. Caruuray maanta, sheekadeennu waxay ku saabsan tahay dameerkii waayeelka ahaa iyo saddexdiisa saaxiib. dameerkani waxa uu noqday mid howlgab ah maadaama jirkiisu uu aad u daciifay. maxaa kugu dhacay dameer yahow cajislowga ah? aad noqotay mid cajuus ah dameer yahow. run ahaantii waxaad noqotay mid bilaa faa'iido ah. xoogaygii waa uu dhammaaday sannadihii la soo dhaafay. markaan yaraa waxaan lahaa awood aad u fiican. saaxiibkaynu aad ayuu ii jeclaa siduu u jecel yahay awlaaddiisa. maxaad ku falaysaa dameerkani waayeelka ah? ma garanayo. waxaan rabaa inaad cuntada ka yarayso si aad ugu soo gadato lacagta cuntadiisa dameer kale. xaaskayga waa ay saxan tahay, waana ra'yi fiican. oo ma joodo dameerkii? dameerkii waxa uu ogaaday inuusan noolaanaynin haddii uusan siinin ninka beeralayda ah cunto ku filan. sidaa darteed waa uu ka cararay. xaawa xaggeen aadaa? waxaan aadayaa magaalada. haddii aan aado waxaan samayn karaa gabay ama anaashiid. haddaba waa inaan aadaa. dameerkii waxa uu go'aansaday inuu aado magaalada si uu u qaado anaashiidu. kani waa kee? ma eyba? iska waran saaxiib, maxaad halkan ka samaynaysaa? waxbo mana doonayo inaan wax sameeyo. maxaa dhacay? ma awoodo inaan ugaarsado, mana awoodo inaan ceyrsado tuugada. maxaa yeelay waxaa noqday mid gaboobay. dhegayso eeyahow, haddii aysan ahaan lahayn sannadihii badnaa ood ii soo shaqaysay, dab ayaan kugu shidi lahaa. haddaba indhahaada iga qari. soxo aan la sii joogi lahaa wax yar, waxa uu igu shidi lahaa dab. ima aadan aragteen adigana. xaaladaada
waxay shaabahdaa xaaladayda. Haddii ay xaaladaada ay la mid tahay tayda, waxaan u malaynayaa wanaag ma jiro. Haddaba dhibkeennu waxaan u hayaa xal. Adigu magaalada ii raac. Sidee? Adigu magaalada ii raac. Aniga ayaa qaadaya nishiidada, adiguna waad i caawin doontaa. Sidaas darteed waxaan noqon doonaa koox xayawaano ah oo sidaa ku shaqaysato. Saaxiibkayga codka dahabka lahow, ina keen. Magaalada ayaannu aadaynaa. Labadii saaxiib waxa ay soo aadeen halka iyo magaalada si ay u asaasaan koox xayawaan ah. Haddaba maxay kula kulmi doonaan waddada? Ina keen aynu fiirinne. Yaanyuurey, bal ka waran xaalkaada. Maxaad ugu eg tahay mid murugaysan? Xaalkaygu ma wanaagsano. Ma lihi saaxiib. Xaalkayga ma wanaagsano. Markii aan caafimaadka qabay, waxaan ahaa mid nashaadsan. Agtayduna ma aysan soo mari jirin jiir ilaa iyo waan qaban jiray. Yaanyuurihay xanuunsani, agtaadu waxaa maray jiir. Ma aanadan arkin. Anigu ma rabo yaanyuur caajisley ah. Dhibkani waxa uu igu dhacay in yaroon xanuunsanaa. Bal ka warrama haddii aan waayeeli lahaa saaxiib. Waxaan arkaa xaalkeedu inuu yahay xaalkeen oo kale. Alla yaa jiir i tuso aan u cudur daarte. Waxaan u soconnaa magaalada si aan u aas-aasno koox. Oo anigu doorkee ayaan qaadan karaa? Mudane, bal u sheeg adigu. Waxaa kugu fiican waxaad noqonaysaa gabyaa. Waxaadna alifi doontaa gabayada. Waxaan noqon doonaa gabyaa. Waa arrin wanaagsan. Aabbahay waxa uu ahaa qoraa weyn. Haddaba na keena. Saddexdii saaxiib waxa ay soo aadeen halka iyo magaalada. Kii nashiidada qaadayay, kii gurbaanka qaraacayay, iyo kii shaacirka ahaa. Waxaan ahay mid xanaaqsan. Maxaa yeelay anigu waxaan leeyahay qiso murugo leh. Dameerow, waana idin sheegi doonaa si aad ugu cibro qaadataan. Waxaan joogi jiray maqaayadda. Mulkiilahana waxa uu lahaa maqaayad weyn. Hase yeeshee digaagad laguma qali jirin maqaayaddaas. Waxa uu jarjari jiray baradhada. Marka uu shiilo, saxanka ayuu korka saari jiray. Aniga ayuu igu qurxin jiray. Annagu waxaan nahay koox. Waxaannu u soconnaa magaalada. Waxaan nahay gabyaa, kii nashiida qaadayay, iyo durbaaniiste. Hadda waxaa naga dhiman oo keliya laxamiiste. Anigu waan garanayaa laxanka. Aad ayaan u aqaanaa. Waxaan ahay mid cajiib ah. Haddaba ina keena saaxiibayaal. Kooxdii waa ay dhammaystiran tahay hadda. Ina keena. Waa ay ama baxeen kooxdii saaxiibaha ahayd, ayagoo mustaqbalkoodu aad u wanaagsan yahay, rajadoodana ay aad u sarreyso.